kulankani watashiga ah oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku nool magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ah qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka waxaana soo qaban qaabiyay wasaaradaha qorsheynta qaranka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Hirshabelle. kulanku intuu socday ayaa waxay soo bandhigtay bulshada ka qayb gashay baahiyaha kala duwan ee haysta kuwa ugu daran iyadoo ay si saraxad leh uga jawaabayeen mas'uuliyiinta wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo Hirshabelle. kulanku markuu soo idlaaday ayaa warbaahinta waxa uga waramay waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi bulshada ay la yeesheen agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda federaalka Soomaaliya Asad Yuusuf Qanyare. aan inta ka qabanay wada tashi ballaaran oo ku saleysan ama sal u noqonayo qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad ee soo socdo. maanta waxaa la kulanay bulshada rayidka runtii wada hadal iyo wada tashi ballaaran oo daahfuran kadib waxaa ka soo baxeen qodobo saddexda qodobo meesha ka soo baxday waxa waaye ahmiyadda ama ahmiyooyinka oo Hirshabelle koow waxaa ka soo baxay inuu amniga uu yahay muhiim tan labaad wabiga ama maareynta biyaha guud ahaan tan saddexaadna caafimaadka saddexdaas qodob aan isla qaadanay insha Allah wada tashigaana waan sii wadi doonaa bari waxaan la kulmeynaa xubno kale saasaan ku sii soconaynaa haddii Ilaahay yira agaasimaha dalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay jiraan goobo kale ay bulshada ku nool kulamo la qaadan doonaan kadibna waxaan ku tala jirnaa inaan gobollo kala aadno oo gobollada kulli la soo wada tashto haddii Ilaahay yira marka guuleena ugu dhamaatay Hirshabelle iyo maamulka iyo dadkii ummadii waan u mahad celinaynaa soo dhaweyntii iyo daahfurnaanta ay nagu soo qaabileen. Abubakar Maxamed Dabaacad leh warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.